Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is Samal Podcast. We stream your voice. ولكن عبد الرحمن iyo marxiga casharadii taxnaa inoo ahaa ee barashada kombiyuutarka maanta waxaan diiradda saaraynaa sidee loo furtaa gmail account gmail.com oo ah sanduuqa aan doonay inaan furo waxaa kuu soo baxaysaa marka ka gada muuqaalkan oo ah get more done with the gmail wax badan ku qabso gmailka intaa kadib waxaad ku dhufanaysaa cursorka ama mouseka haysato create account oo ah furo sanduuq waana sanduuqaan niri waa sanduuq muuqaalada fariimaha iyo waxyaala badan oo aasaasi u ah horkaca nolosha ee qaybkeeda fariimaha dhakhaatiirtaada iskuulka shaqada saaxiibada intaba wax badanna waa ku kaydsan kartaa akoonada emailka ku leedahay intaa kadib waxaad gelinaysaa magacaaga koowaad iyo magacaaga labaad waxaad deedna samaysanaysaa username oo ah magaca isticmaalka wuxuu noqon karaa naanaystaaga wuxuu noqon karaa magacaaga iyo xarfa ama lambaro dheeraada marka maxay tahay magaca isticmaalka oo ah username waa qayb ka mid ah ciwaanka emailka khaaska ku noqonaya ee gmail waxaad u isticmaali doontaa inaad ku gasho emailkaaga oo aad ku hesho risaalooyinka ama fariimaha ku qoran magaca isticmaalka ee aad doonayso inaad u isticmaasho waxaa ku xigi doonaa inaad samaysato labada xigta kelmadda sirta oo ah mid ka kooban sideed ama xarfo lambaro iyo calaamado kan waa xirmo ku gaar ah si aad u gashid xisaabaadka fadlan xusuusnow oo ku qora meel si aadan u hilmaamin aad bay muhiim u tahay in kelmadda sirta ah ama basswordku uu yahay mid ku gaar ah oo ay adag tahay in dadku isku dayaan inay furaan maadaama emailku wuxuu noqon karaa sanduuq wax badan oo muhiim ku ah ay kugu jiri karaan deedna waxaa kuu soo baxaya muuqaalkan ah markaad gegeysado oo aad samayso magaca koowaad labaad usernameka samaysato deedna wuxuu ku leeyahay gali telefoonka ama haddaad leedahay email cloud oo haddii aad hilmaanto furahaaga iyo magacaagaba in aad hesho fariin haddaad xusuusan weydo intaa taasina waxay kaa saacidaysaa in akoonkaaga ama sanduuqaagu yahay mid adig ku gaar oo adag tahay qof kale inuu fursad u helo u furi karo marka foonkaaga ayaad gelin kartaa waxaa kaloo dooran kartaa inaad emailkaaga gasho waxaa kaloo lagaa doonaya inaad eegto qaybta dhalashadaada bisha maalinta iyo sanadka waxaa xigi doonaa in xagga genderka ama nooca tahay laba iyo didig aad iyaduna doorato marka haddii aad gelisay emailka telefoon markaad furanaysay waxaad heli doontaa fariin iyadoo ah mid qoraal ama text message ah fariintaasi waxaa ku lifaaqan lambar la doonayo in lagu hubiyo in aad adigu tahay deedna lambarkaasi ah
mid xaqiijina ama verification ah baad gelinaysaa goobta lambarka xaqiijinta loogu talagalay. inta badan gmailka wuxuu ka bilowdaa xarafka ja xarafka g oo george u taagan g oo gmail u taagan iyo lambar dhowr ah. deedna waxaad dooranaysaa verify oo hubso. tallaabada xigta waa adiga oo u aqbala ama u hoggaansama shuruudaha isticmaalka gmail accountka. google-ku wuxuu kaloo ku leeyahay akhri oo faham xogtaada iyo heshiiska aad nala gelayso si aad u fahanto qormadan eeg buu ku leeyahay waa mid privacy and terms ah iyo mid you are in control in aad waa tahay mid haya hoggaanka ama steerinka accountka aad ka furtay gmailka waad xiri karto aad furi karto oo aad wax badan u isticmaali karto.